ما سنتين وهذه السلام أصحابتها من ونحسن إنه خطك يقول قاي أنا هالليا marka maasha Allah maanta iska maalin fertility ahayd odaygii Trump baa hadlayay halka TikTok-gana waa saacadii bar baan joognay marka waa u mahadcelinaya asxaabta TikTok-ga joogta maasha Allah TikTok waxaa jooga dad maasha Allah aad u baahan in la gacan qabto so halkaas aan rabnay inaan awoodda saarno insha Allah habeen walba dee ugu badato dana waqti aan wax kala iman insha Allah 1 hour 2 hour inaan halka tagno waa ku rajo weynahay sida guud suuqu uu iska qurux badan yahay laakiin iska xoogaa volatility baa jira cabsiyaa iska soo yara kordhay warka caawa ugu weyn waxa weeye Robinhood ayaa sheegtay inay tixgelinayso inay BTC iibsato balance sheet-keedana ay ku darto ninkii BlackRock-na iyaguna maanta 4,560 BTC bay geeyeen Coinbase ay rabaan inay iibiyaan Trump uu hadlay waxyaalo badan buu isku qasay walow aan wax financial soo hadal qaaday laakiin waxyaalo ka hadlay waxa kamid ah Bitcoin ay maalin ka sare mari doonto dahabka laakiin wuxuu aad u dhaliilay xagga siyaasadda iyo gudaha iyo dadkii doorashooyinkii ilaa shalay daraadka socday waxaas wararka ugu waaweyn bay ku jireen Nvidia iyaduna 150 bilyan oo khasaaraha bay gashay xalay markii CEO-geedu sheegay in tartanka AI-ga ay kaga horeyn doonaan China uu kaga horeyn doono Mareykanka hadalkaas hadal lama filaan u ahaa marka xalisna Trump khudbadu ka jeediyay kala duwan waxaanu sheegay in crypto ay awoodda saarayso in dollarka cadaadiska saaran ay ka qaado Xi Jinping buu amaanay waa saaxiibkay buu yiri sidoo kale GDP-ga rubuca saddexaad wuxuu yiri wuxuu noqon doonaa mid aad u kordha ilaa rubuca afraad saadaalin fiican buu ku sameeyay sidoo kale Shutlonka iyagana negative baa maanta laga soo sheegay xogtii ugu horreysay Shutlonka ka soo baxday markay soo baxday ayaa suuqa la daadiyay BTC 100 kun la geeyay lagu soo celiyay waxaana sheegaysaa xogtaasi in 15 bilyan ay maalin walba khasaarto dowladda Mareykanka intii Shutlonka lagu jiray total hadda khasaaray marka hadda la xaqiijiyay 6 cishana waxa weeye 7 bilyan oo dollar inay khasaartay dowladda Mareykanku every day-na celcelis 15 bilyan ay khasaarto every day 15 bilyan ay every sport عفوا every اسبوع 15 bilyan bay khasaartaa totalna waxay khasaartay 30 bilyan xogaas ugu waaweynaa maanta